kulanti habboon daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka xogta wararka qodobada aad ku daawan doontaan hadduu ee barnaamij ka noqdo daawadayaal waxaa ka mid ah taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariisay General Cabdirasaaq Khaliif oo ku geeriyooday dalka Canada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo isna ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariisay General Cabdirasaaq Khaliif gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka qayb galaya shirka ka soconaya baarlamaanada Carabta ee ka soconaya dalka Burkina Faso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo xafiiskiisa ku qaabilay madaxda ugu sareysa bisha cas ee Turkida qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu ee barnaamij ka noqdo daawadayaal hase yeeshee asagoo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada mar kale barnaamijka xogta wararka ee SBS ana ku bilawnay qodobka ugu horeeya afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiqani Shabeel oo ku hadlay afka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay General Cabdirasaaq Khaliif oo ku geeriyooday dalka Canada isagoo horay generalka xilal kala duwan uga soo qabtay dawladihii dalka soo maray bismillaahir rahmaanir rahiim ana ku hadlaya codka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan halkan tacsiid diiraya leh uga direynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi oo ku geeriyooday dalka Canada sidaas daraadeed dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu leenahay samri iimaan Allah naga siiyo naxariista jannada Allah ka waraabiyo waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynaa eheladii iyo qaraabadii iyo caruurtii iyo qoyskii iyo ka geeriyooday dhammaan waxaanu leenahay samri iimaan Allah naga siiyo waan idin la qabnaa tacsida waa idin la marweynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid Allah u naxariistay General Cabdirasaaq Khaliif oo ku geeriyooday dalka Canada madaxweynaha ayaa dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ba uga tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay General Cabdirasaaq Khaliif oo xilal kala duwan hore uga soo qabtay dalka isagoo Allah uga baryay inuu jannadii firdawso ka waraabiyo ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodana samir iimaan eebba uu ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa ugu sareeya hay'adda bisha cas ee dawladda Turkiga ee Soomaaliya kaasi oo soo gaaray aqalka dawladda hoose Xamar waxayna ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha haatan ka taagan dalka gaar ahaan dhinaca dadka danyarta ah iyo sidii wax loogu qaban lahaa gudoomiyaha ayaa waxa ku weeliyay kulanka gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir waxaana inta kulanka socdo looga hadlay sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho
iyo hay-adda bisha cas doorka ay ka qaadan karto hanaanka dadkaasi wax lagu sii karo. sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay inay kaalin ka qaadan doonaan sidii wax loo gaarsiin lahaa dadkaasi. marka hore waxaa kulanka ka hadlay madaxa hay-adda bisha cas ee gudoomiyaha gobolka banaadir uga warbixiyey waxyaabaha ay u qabanayaan shacabka Soomaaliyeed. Aleyküm. Mustafa Şahin Fırat, Türk Kızılayı Delegasyon Başkanı. Bugün burada Türk Kızılayı olarak Mogadishu Belediyesi'ni ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ziyaretimizin amacı Mogadishu'da Somali halkına Türk Kızılayı olarak yapacağımız faaliyetleri beyefendi ile Mogadishu Belediyesi ile istişare etmek. Somali'de Mogadishu'da 2011'den beri faaliyet gösteren Türk Kızılayı'nın faaliyetlerini 2020 yılı içerisinde de devam ettireceğiz. Bugün buradaki ziyaretimizin en önemli konusu Mogadishu'da açacağımız bir aşevini beyefendiyle beraber istişare etmek. İnşallah önümüzdeki dönemde Mogadishu'da günlük 5000 kişiye hizmet verecek. Buradaki yetimhanelere, hastanelere, yaşlılara hizmet edecek bir aşevinin inşa edilmesi. O konuda Mogadishu Belediyesi ile beraber hareket edeceğiz. Bizi burada ağırladığı için Mogadishu Belediyesi'ne, beyefendiye ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Önümüzdeki dönemde de Mogadishu Belediyesi ve Türk Kızılayı olarak işbirliklerimize devam edeceğiz inşallah. Selamlar, hürmetler herkese. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa soo dhaweeyay howlaha ay hay-adda bisha cas ee ka qabanayso magaalada muqdisho sidoo kalena loogu tabarucayo dadka danyarta ee ku nool kaamamka ku yaala magaalada muqdisho. haddaba gudoomiyaha arrintaasi ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ah. waxaa noogu yimid xarunta maamulka gobolka banaadir hay-adda madaxa u sareeya hay-adda bisha cas ee dowladda Turkiga ee Soomaaliya wuxuu noo sheegay inuu halkan ka qaban jiray ama hay-adiisu ay ka qaban jirtay xilligii duruufaha ay macluush ay jireen wax badan oo ummadda Soomaaliyeed ay u baahnayd ilaa hadda xafiisku inuu furnaa laakiin maadaama xaaladdu ayan ahayn sidii tii berigii 2011 howlahoodu ay khafiif ahaayeen sidaa darteed maadaama duruufo iyo macluulay waxyaaba noocaas hadda evaluation la sameeyey lagu ogaaday ayay waxay sameynayaan wixii karaankooda ah oo ay u horeyso jiko dadka baahan loogu kariyo cunto. arrintaas waxaa kala shaqayn doona maamulka gobolka banaadir isla markaas waxaa jiri doona gaadiid cuntada marka la diyaariyo loogu qaadayo goobaha ay degan yihiin dadka baahan oo cuntadaas u baahan. taasi marka waxay qayb ka tahay daryeelka bulshada taagta daran ee ku nool magaalada muqdisho. bulshadaasi waxay noqon karaan barakacyaal, waxay noqon karaan dad meesha aan barakac ku ahayn laakiin sidoo kale danyar ah. marka walaalaha Turkiga iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya waxay u istaagi doonaan haddii alleedmo in dadka Soomaaliyeed gargaarka u baahan la gargaaro. wax alla wixii kale aan u aragnay in laga maarmaan ay noo tahay ama bulshadeena ay u tahana. qaar ka mid ah dhalinyarada Sool iyo Sanaag ayaa baaq u diray dowladda kaasi oo ku aadan in ay dhalinyaradaasi ay xaqi ay ku lahaayeen dowladda ay ka waayeen maadaama dhawaan magaalada Muqdisho lagu qabtay shir maalgashi taasi oo lagu maalgelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed. waxayna sheegeen in ay baalmariyay xuquuqda ay lahaayeen dadka Sool iyo Sanaag. haddaba ayagoo arrintaasi ka hadlayo waxaa hadaladoodii ka mid ah. waxaa halkan iskugu yimi dhalinyarada magaalada Baran ee gobolka Sanaag iyadoo ujeedku yahay kulankan ay iskugu yimaadeen shirkii maalgelinta dhalinyarada
maalinnimadii shalayto uu daah furay ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre ee ka qabsoomayay magaalada muqdisho oo ay dhallinyaradu markii ay ilaa xalayto iska arkeen oo gobolladii 18 gobol ee dalka markuu ra-iisul wasaaruhu uu tirinayay uusan xusin gobollada Sool iyo Sanaag oo ayna ka qayb ahayn shirkii maalgelinta dhallinyarada loo sameeyay ay maalgelinaysay hay'adda USAID marka dhallinyarada gobolka Sanaag si guud iyagoo u hadlayay oo gobolka Soolba waxa ay ka maqnaayeen shirkaas oo aan lagu cusubin laguna martigelin marka dhallinyarada magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxay ka xun tahay shirkii shalayto ka furmay magaalada caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya inaasan labadan gobol dhallinyaradoodii hal abuurka lahaa mustaqbalka fiirinayay ay dawladoodana ka warsugayeen oo ay dhowrayeen inaan lagu xusin lagana qayb gelin oo ay shirka gobolada Sool iyo Sanaag aysan ka qayb ka ahayn dhallinyarada magaalada Baran ee gobolka Sanaag oo ah xudunta isku haysa midnimada Soomaaliya oo tan iyo burburkii ilaa dawladii dhacday dawladda Soomaaliya aysan ka helin wax taageero ah iyo wax horumar ah mashaariic haday ahaan lahayd dhan kastaba haday ahaan lahayd marka su'aalaha aan weydiinayno dawladda federaalka uu garwadeenka ka yahay mudane xasan cali khayre waxay tahay cidii lagu haleeyay mas'uuliyadda labadan gobol ay laga tagay waxaynu ka warhaynaa isbuucii hore ama bishii tagtay shirkii lagu maalgelin lagu hormarinayay dawladaha hoose ee magaalooyinka maamul goboleedada in ra-iisul wasaaruhu markiiba uu joojiyay uu yiri looma dhana waxa dhammaan ka qayb galaya maamul goboleedada dalka waxaanu ka xunnahay oo aan cambaaraynayna shirkii shalayto ka furmay magaalada Muqdisho ee maalgelinta dhallinyarada maantana la soo gabagabeeyay oo soo xidhmayay inaan gobolada Sool iyo Sanaag dhallinyaradooda lagu casuumin qaybna ka ahayn waxaana arinta uga fadhinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre codkayaga baaq dheer ayaanu ku sheegaynaa in xuquuqdii ay lahaayeen goboladan ay ku tagrifalaan mas'uuliyiinta ugu sareysa ee xilalka u haya ee gobolkan waxaanu sidoo kale cambaaraynaynaa oo aanu cambaarayn dusha uga tuuraynaa matalayaasha gobolkan u matalaya dawladda federaalka Soomaaliya oo aan ka hadlin oo aan u doodin oo aan hal maalin oo kaliya dhallinyaradana waxa ay xaq u lahaayeen aysan ka hadlin halkan isugu nimi kulan kaasoo daarnaa barnaamij ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xasan cali khayre oo runtii daafur u ahaa oo ahayd sidii looga qayb gelin lahaa dhallinyarada fursadaha waddanka ka bannaan oo maalgelin loo sameynayo aan soo wada ogsoonahay dhawaanaha waxa magaalada Muqdisho xafiis ka furtay hay'adda USAID oo gargaarka Soomaaliyeed Mareykanka laga leeyahay uu hogaaminayo administrator Mark Green runtii waxay nagu noqotay wax aad u adag oo aan maskaxdeeda geli weyday markii aan maqalnay barnaamijka sidoo soo baxay oo ah in barnaamijkii waxa weeye lagu qaybiyay goboladaasuna waxa weeye ay u dhamaayeen Soomaaliya waxaan halkan baaq dheer u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inaan ummaddaasi ummadda Soomaaliyeed ama gobolada Soomaaliyeed aan u dhamayn oo gobolo badan oo runtii lafdhabar ama lafdhaxaad u ah midnimada Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay Sool iyo Sanaag ay ka maqan yihiin deeqda dhalinyarada loo fulinayo Soomaaliyeed runtii waa waxa looga naxo in wadaxdii waddanka lagu aaminay oo inta badan aanu cimaamadnay oo aanu dabaaldegaynay oo marar badan aanu fiidiyooda dhageysano oo ay ugu dambeysay waxa weeye fiidiyooga dhalinyarada kula hadlayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhalinyarada hal abuurka Soomaaliyeed inuu waxa weeye dhalinyarada ku gubaabiyo in waddanka ka shaqeeyaan laakiin macaalasaf dhalinyarada haddana ayna xaqoodii ayna ka helin dowladda federaalka Soomaaliya uma fadhino arimaha noocaas oo kale ah waxaan xusuustaa haddaan dhalinyarada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran runtii federaalku wax horumar ah oo naga soo gaaray inta ay xukuumadda nabad inoo joogto ma jirto mana garan karo sababta ka dambaysa ma anagu ma Soomaali baan ka mid ahayn ma goboladaan ka mid ahayn runtii su'aalo badan aan isweydiinay inta ammaanka ay ku jira waxay ila tahay
waxa la yiri ninku arkaya looma sarka joogsado federaalku warkayga waa hayaan inta badan meelaha ugu badan oo laga taageero hadday tahay social media hadday tahay waxa weeye saxaafadba waa gobolada Soomaaliya sanaag Soomaali weyna waxa weeye gobolada u ooleeyay midnimada weeye haddii qaaradda sabankan la ka saarayo meesheeda laakiin waxaan aaminsanahay anagu inaanu nahay dadka udubdhaxaadka waa Soomaali waxaan aaminsanahay inaanu Soomaali wixii gado aan gali karno wixii gudana aan gudi karno ugumana baran madaxda Soomaaliyeed inay maalin waxa weeye xuquuqdeena la doosiyo aan halkaas ka marno maanta bacdi gitaarkii macana inuu tuumeeno gitaar qaraar baa nagala kulmaysan waxaan idin sheegaynaa inaanu xuquuqdeeda aanu ka hadlayno oo aanu caalamka gaarsiinayno hadday tahay xafiisyo waaweyn oo UN ka hadday tahay waxa weeye xafiisyada arrimaha qaabilsanba runtii marlabaad iyo saddexaad aad baan ugu xunahay deeqaas iyo waxa weeye barnaamijkan maalgelinta dhalinyarada qaabka ku baxay xukuumadana waxaan baaq dheer u sheegaynaa arinta in waxa weeye dib u fiirsi laga sameeyo hadii isteediyada loogu soo dhiibay wax oo isteediyadu la yiri saa u qaybiya in dawladda federaalku cadeyso haday qaabka iyadu u qaybin jirteen si direct ay waxa weeye ay gobolada Soomaaliya u qaybisana in noo sheegto oo tiraado waxa weeye anaga aan ka reebnay hadii banaadi ku dartay xuquuqdeedina in noo sheegtaan rabnaa taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in Cabdirashiid Janan uusan ka baxsan xabsiga ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxayna sheegeen warkaasi inuu yahay war been abuura hadalkan ayaa imaanaya kadib xilli ay shalay barteeda Facebook iyo Twitter-ka ay ku qortay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Zakiyo inuu baxsaday wasiirkii hore amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan horta waa nasiib darro dadka wax baahinaya oo miidiyaha iyo waxa fiican iyo dadka hadlayo waaweynba ama Reuters la hadleen ama BBC hadleen ama meelaha ka hadleen ama wax kasta ka hadleen waxa fiican markaad mas'uuliyad tahay oo mas'uuliyad qof mas'uul tahay oo mas'uuliyad Ilaahay ku dhaliyay oo reerkaaga iyo dadkaaga ay ka soo bilaabato oo ardadan Ilaahay dhulku u abuuray dadku mas'uul uga dhiga waxa laga rabaa mas'uuliyadaada inaad ilaashatid sharafkaaga inaad ilaashatid waxa sheegaysidna wax runa inay ku salaysan yihiin nin la yiraahdo Janan halkaan lama keenin ma naqaan maxkamaduhu noomana soo rumaan garayn oo soo rumaana lama keenin waa cadaynayna isagoo xukuumana lama keenin wararka waxaan ka maqlaynaa idaacada iyo warar baan ka maqlaynaa marka waxa fiican in la qaato waxa runta ku salaysan tahay Janan halkaan lagu ma soo xirin lama soo waaran garayn cid ma keenin maana arag sidaas aad marka ku ogaanaysaan inaan Janan halkaan ku xirnayn ka fakan uusan imaan waka xogta Janan ma dadka kala midtii xogta Janan annaga waxaan kala midnahay dadka waxaan ku cadaynayaa Janan annaga dad baan haynaa xabiista iyadoo maxaabiis oo tira kooban tahay intay tahay waa la yaqaan qof walba maanta soo galay waa yaqaan waaran ku soo galay waa la yaqaan sharciyadu ku soo galay waa la yaqaan Janan marka annaga meeshaad hadda idinku kala hadlaysaan baan ka maqlaynaa maanaan muxuu ahaa nalooma keenin maanaan arag saasan cadaynayna barnaamijka xogta wararka intaas ayaan ku soo gabagabeynayna dhanka kaamirada waxa iga qabtirayay saaxiibkii Shaasha anigoo Cabdullaahi Maxamed Sheekhdon oo idin socodsiinay intaan kiis xigaan kooda kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillah